mahuranka xolaha kayasha adimada cuduryaadu areerine kayasha kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii xanaanada xoolaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaatada ay leedahay dawada sida qaldan loogu isticmaalo xoolaha waxaana istuudiyaha reediyo hargeysa marti inoogu ah dhakhtar cabdideeq maxamuud yuusuf oo aqoon aada u durugsan u leh caafimaadaynta xoolaha doctor subax wanaagsan faysa adiga dhegaystayaasha walaal bal marka hore waxa aad qeexdaa dawadan qaldani marka horeba sida ay u qaldamaysiyo waxay tahay walaal mawduucan in maanta ka hadlayno ee adkaysiga ay ama sida qaldan dawada loo isticmaalo oo keeni kara waxa afka qalaad lagu yiraahdo AMR-ka ama adkaysiga uu dulinku u yeesho dawada dhibaatada keeni kara marka adkaysiga uu dulinku u yeesho dawada inta badan waxa la yiraahdaa waxa ay kamid tahay 10 shay ee adduunyada maanta ugu khatarta badan ay kamid tahay bini'aadanimada ay maartay khatar ku leedahay waxa ay khatar ku leedahay maxaan ku raadayay caafimaadka dadka iyo ka xoolahaba waxyaabaha maartay marka la eego ay keeni karto marka ugu fudud imka loo eego waxa weeyaan in xanuun markii hore hadduu kugu dhaco dawo aad u heli jirtay inaad dawo u weydo oo xanuun si yaro fudud looga daweysmi jiray oo ama neefka xoolaha marka uu ku dhaco markaba neefka xoolaha laga daweyn karayay in laga daweyn kari waayo ama xanuun sidoo kale marka uu dadka ku dhaco markii hore laga daweyn jiray oo si yaro fudud looga daweyn jiro dawadiisu taalay ay dawadiisu waxba tari weydo sidaa daraadeed xanuunkii dhibta yaraa uu adkaado marka gogoldhigeedu waxa weeyaan waa taas waana maxaan ku dhahdaa mawduuc runtii aad iyo aad muhiim ah doctor maxay muhiim u tahay in maxaan ku dhahdaaye ay adkaysigan in ay u adkaato in dawadii marka ay qaadato in la siiyo xoolihii maxay adkaysigan uu yahay jirka wuxuu adkaysigani waxa muhiim horta inoogu yahay sidaan sharxay haddii dawada si qaldan loo isticmaalo waxyaabaha keeni kara waxa ugu weyn oo maaragtay aynu ka hadli doonaa waxa weeyaan dawada si qaldan loo isticmaalo marka haddii dawada si qaldan loo isticmaalo waxa ugu badan ee maaragtay ka iman kara waxa weyn waa dhimasho waxa ugu badan ee ka iman kara xanuunkiisa sheegay oo la daweyn jiray oo la daweyn kari waayo haddii xanuunka la daweyn kari waayo waxa kordhaya waqtiga uu neefku xanuunsanayo waxa yaraanaya wax soo saarkiisii waxa badanaya waqtiga qofka bini'aadamkii uu xanuunsanayo waxa yaraanaya wax soo saarkiisii waxa badanaya qarashkiisii marka hawlo badan oo runtii maxaan ku dhahday dhibaato ku ah dadka iyo xoolahaba ayaa ka dhalanaya marka saasoo kale neefkii uu adkaysiga dawada uu yeesho in waa qaabka kale ee dawo loogu raadin karaa arrintaas aad iyo aad bay u adag tahay tusaale ahaan mawduucani markaan waa muhiim waxa muhiimadiisu waxa ku tusinaya meel kale ka tusinaya marka la eego sanadkii 2019 WHO warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 32 dawo oo cusub maaragtay la helay waliba 32 ka dawo oo kuwa la yiraahdo dulinka waliba bakteeriyada dila ah 32 ka 6 kamida oo baa lagu tilmaami karay sida ay qeexeen dawooyin cusub inta kale waxa u dhawaayeen dawooyinkii hore ee jiray taasoo jirta sanadka dhan 6 dawo cusub baa la helay laakiin markaad eegto reydka ama xadiga ay ku socoto noocyada bakteeriyooyinka ama dulimada ee u adkaysanaya dawooyinka maanta jira waxa weeyaan waa khatar weey marka aynu barnaamijkeena qaybaha dambeeyayna sida wax loo qabanayo waxaanu eegi doonaa markaad barbar dhigto qadarka dawada ee cusub ee soo baxaysa adduunyada xadiga ay ku socoto maxaan ku dhahay adkaysiga ay maanta u leedahay dulinka jira maanta uu yeelanayo dawooyinka jira inuu ka adkaado waa laba aan la isbarbar dhigi karin oo waxa badan qadarka ama magaransa reydka uu ku socdo maxaan ku dhahay dulinku inuu ka adkaado dawooyinka aynu hayno uu ka adkaado marka taasa maartay marka dawooyinka cusub waxaynu insha Allah aad u eegi doonaa marka hadii Ilaahay yiraahdo siyaabaha aan dawada ahayn ee loogaga hortagi karo in dhibaatadan ay dhacdo
doctor markay saasoo kale ay dawadu neefkii uu la falgalo oo ani haddana aanay waxba u taraynin ka waran in haddii ma loo badin karaa tusaale ahaan oo intii in leeg ma looga kordhin karaa way marka waxaan horta bal marka hore aan ka horeysiin lahaa horta maxaa keeni karaba in marka hore ay dhacdo in adkaysi ay u yeelato dulinku inuu adkaysi u yeesho dawada waxa ugu horeysa waxyaabaha keeni kara waxa kow ka ah dawada si qaldan loo isticmaalo marka halka loo kordhinayo waxaynu magaraysaa odhanaynaa marka koowaad sidee baa loo isticmaalaya dawada waa qodobka ugu muhiimsan waa kow dawo nooc maabaad isticmaalaysaa waxay ka soo bilaabmaysaa marka neefku markuu xanuunsado maxaa haya cudur baa haya marka cudurka haya ilaa maxaan ku dhahdaa la qiyaaso oo la yiraahdo cudurka haya waa kaas waa cudur hebel inaan dawo loo iibin oo waxay markaa taas keenaysaa in qofkii xoola dhaqatada ahi uu neefkiisa maxaan ku dhahdaa hadaanu garan xanuunka haya ama aan loo sheegin inaanu dawada ku degdegin waa koowaad marka dabadeetana la yiraahdo cudur hebel baa haya ka soo qaad sabab baa la yiri ama waxa la yiri waa furuq baa haya ama waxa la yiri xanuun kale oo candhabar baa haya markaas ay noqonaysaa dawadeeba ugu haboon dawadii marka la helo iyadana ta ugu haboon ee hadana waxa weeyaan waa in la yiraahdaa maxaan ku dhahdaa dawadan ugu haboon inteeba laga siinaya qadarkeeba laga siinaya dabadeetana marka la yiraahdo qadarkaas laga siinaya waa inay hadana timaada in la yiraahdo imise cisha la siinaya dabadeetana inta cisho ee la siinaya maxaa ku xiga ee tafariina ee qofka xoola dhaqatada uu inaga helaya tusaale ahaan inta aad dawada qaadanay uu neefku qaadanayo inaan cadkiisa iyo caanihiisa toona la isticmaalin marka macna intaas oo dhan baa maxaan ku dhahday ay tahay maarta waxya hadii la tixgelin waayo habraacaas oo dawada neefka la siinayo aan loo aabayeen maanta inta badan looma aabayeelo nasiib daro oo maxaan ku dhahday qofka maanta xoola dhaqatada ah marka uu neefkiisu xanuunsado dawo suuqa ka soo iibsada ay ugu badan tahay ta la yiraahdo oksadu dabadeetana wuu soo qaadaa dabadeetana neefku wuu ku mudaa qadarka uu ku mudayo inta badan aad uma maxaan ku dhahday dadka xoola dhaqatada uma yaqaanaan markuu ku mudo hadii bari toole neefka uu u baahdo inuu iibiyo waa laga yaabaa inuu iibiyo waxa kale oo laga yaabaa caanihiisa markay ugu yartahay hadaan suuqa geenin inuu reerkii siiyo hadaba taas maxay keenaysaa cudurro kale waxay keenaysaa in dulinkii uu adkaysi u yeesho dawadii waayo waxa dhacaysa in qofka reer miyiga uu siiyay neefkii dawo aan ahayn tii xanuunkii hayay marka dawo kale oo aan jirku u baahnayn markaas aad ku muddo ama maahe in dawada qayb inta aad ka siisay ay maxaan ku dhahay aanay leekayn underdose inaad samaysay in qadar ka yar qadarkii dulinka dili lahaa inaad siisay taasi maxay samaynaysaa Soomaalida xataa wixii ama mala gaalada tiraahday wixii aan ku dili karin way ku adkeeyaan macnaha dawada haddaanay dulinka ka adkaan karin waxay u sababaysaa inay dulinku dawada ka adkaado marka dambe waa in qadar markaa go'an ayaa dili kara dulinka ee qadarka la siiyo ayay noqonaysaa taa macnaheedu maaha in qadar farabadan oo dawo ah loo isticmaalo waxa weeyaan in qadarka saxda ee dawada uu neefku uga baahan yahay iyo dawada sax ah ee neefku u baahan yahay iyo inta cisho ee neefku u baahan yahay in la siiyo ay noqonaysaa doctor su'aal caadi aan ku weydiinaya aan jeclay inaad nooga jawaabto in maxaan ku dhahdaayay waqtigan xaadirkan taaganahay dawooyinka xitaa dadka badhaho iyo xoolaboorta halkaas ka badhigtii dadka laftigeediba aanay dawadii waxba ka tarayninba dadkii waana u badan tahay maanta dawooyinkan waxba ma dilayaan virus wala bacteria marka ka waran in ma dooska la soo yareynaya ma dadkeena wax jaban soo qaadanaya bal su'aasha horta ka jawaabeen ku soo noqon doonaa adkaysiga iyo dawadan mawduuciina aad ba horta walaal Fays waxa kale oo jira su'aashaas si toos ay mawduuca ula xiriirta tayada dawadu waxay qayb ka tahay tayaxumada dawadu waxay qayb ka tahay waxyaabaha keena inay adkaysi u yeelato bakteeriyadu dawo kasta waxay leedahay waxa la yiraahdo active ingredient ama qaybta nool dawadu laba qaybood bay ka kooban tahay qayb ama waxay ku milan tahay iyo qaybta shaqaynaysa marka la eego dagaalka la gali doonta dulinka marka inta badan dawooyinka maxaan ku dhahdaayay la keeno maanta wadanka
nasiib darrada jirta waxa weeyaan in maadaama aanu jirin weli quality control amaba inagu aynaan awood u yeelanin inaynu idhaahno dawadan soo degtay maxay ka kooban tahay ogaalkay weli ma jirto maxaan ku dhahday inagu maynaan gaadhin heer aynu dawadu markay timaado aynu idhaahno dawadani maxay ka kooban tahay aynu eegno laabka waxaa lagu ogaan karaa dawadani waxay ka kooban tahay waxaa lagu ogaan karaa dawadani maxaan ku dhahay maxaa ku sensitive ay ku tahay macnaha maxay dili kartaa waxaa lagu qiyaasi karaa laabka oo la ogaan karaa dawadanu inta xanuun amaba inta bacteria ama dulin ee ay ku tahay lid ku tahay waa la ogaan karaa sidaa daraaddeed hadhow toole marka farmasiyada ama dhakhaatiirta la geeyo waa la siin karaa maxaan ku dhahay talooyin dawadan inay ku wacan tahay waxyaas marka maanta weli ma haysano heer aynu nahno dawo kastoo soo degaysaa tayadeedu waa caynkaa sidaa daraaddeed waxaa suurtagal ah in suuqa laga helo dawooyin fara badan oo tayadooda ay aada u liidato oo dabeetana qofkii hadduu dawadii sax ahaa qaato oo uu qadarkii sax ahaa ka qaato oo uu muddadii sax ahaa u qaato inay dawadii waxba tarin sababtoo iyada wax ka qaldan yihiin waana waxyaabaha iyaduna runtii halista faraha badan amaba hogaaminaya maanta in xanuuno badan inay dalka jiraan waxuu keenaysaa qofkii inuu dawadii dawo aan ahayn inuu ku cararo ayay keenaysaa oo maxaan ku dhahay waxay keenaysaa inuu qofkii dawadiina inuu bedelo maxaan ku idhaahdaay oo uu dawo kala doonto ayay keenaysaa marka runtii dawo xumadu waxa weeyaan ama taya xumada dawada maanta inta badan waddanka taala waa waxyaabaha keeni kara in dulinku uu maxaan ku idhahdaay adkaysi u yeesho dawada arrin kale mawduucani walow barnaamijka xanaanada xoolaha aan kaga hadlayno adkaysiga ay u yeelato dawadu dulinku u yeesho dawada qaybta xoolaha aynu eegayno laakiin sidoo kale bili-aadankana waa isku mid haddii bili-aadanku si qaldan dawada u isticmaalo haddii dawada aynu maxaan ku dhahay aynu iska isticmaalno waxay keenaysaa in dawooyinkeenu marka dambe waxba tari waayaan in dawadu ay marka dambe qofka waxba u tari weydo oo xanuunka daweyn weydo ay keenaysaa marka waxa weeyaan mawduuca macnaha qayb muhiima runtii ka tahay dawada tayada dawada waddanka taalla in sare loo qaado oo weliba inta aan waxba la baari karin in ganacsadu ilaahay intay ka baqaan ay dawo wanaagsan marka ay soo iibinayaan ay soo iibiyaan dadka u keenaan ilaan cidimo oge absolutely arrin kale walaal aan ku dari lahaa intaas waxa weeye waxaa laga yaabaa ninkii ganacsada inuu dadaalo way dhici kartaa inuu dawo wanaagsan keeno inay dawo fiican la keeno waxyaabaha tayada dawada hoos u dhigi kara waxaa ka mid ah haddii dawada si xun loo kaydiyo dawadii baad soo qaaday meel kulul baad geysay way dhici kartaa markaa ama cadceedaad u dhigtay ama maxaan ku roob baaba ku da-ay marka waxyaabaha maaragtay dawada oo si xun loo kaydiyaa iyana waxay keeni kartaa inay tayadeeda hoos u dhacdo waxaa kaloo keeni karaa inay hoos u dhacdo waktiga ay dawadu dhacayso dawadu waxay leedahay wakti ay shaqayn karto marka waktiga dawadu ay dhacayso haddii dawadu marka ay dhacdo kabacdi la isticmaalo iyaduna dhibaatay keeni kartaa hayo dadkii waxaana u fiirsanayna expire date-kii yes absolutely balla haddaba xalka maxaynu odhan karnaa xalku wuu badan yahay waxaana ugu muhiimsan xalka maanta in awood la saaro in isticmaalka dawada ee bulshadeenu sida u isticmaalaysa dawada in awood aada u weyn la saaro isticmaalka dawada oo ah in dawada ay noqoto dawada weliba la yidhaahdo nooca antibioticska bacteriyada lagaga hortago bacteriyada ama caabuqaasi uu keeno lagaga hortago inay noqoto inaan waxaan lagu degdegin ay noqoto dad iyo xoolaba inayna noqon wax dawada lagu degdego dawadu waa inay noqotaa waxa ugu dambeeya hadduu madaxu ku yaro xanuunaba inaanad kinin qaadan horta waa xalka ugu horeeyo dadku inay ogaadaan inay dawada mar walba ay ka dhigaan waxa ugu dambeeya isticmaalaan qodob ka xoola dhaqata ahaan xalku waxa weeyaan hadduu neefkaagu xanuunsado dhakhtar la xidhiidh kaaliya la xidhiidh dawada saxa ha lagu soo dooro sida saxa ha lagu sheego sida saxa ha lagu mudo marka neefkaaga la mudo ama dawo la siiyo muddada loogu talagalay in aan cadkiisa ama
macaanihiisa la isticmaalina waa inaad adiguna aanad isticmaalin maxaan ku dhahdaa dadkana aanad u keenin maxaa dhici kara walal fiisay neef baa maanta la mudaya dabadeetana siilada berri la keenaya neefkaasi wuxuu ku jira maxaan ku dhahdaa waxa ku jira maxaan ku dhahdaa dawadii baa jirkiisa ku jirta dabadeetana adigu waad soo iibsanaysaa neefku waa la qalay hilibkiisa waad soo iibsanaysaa hilibkiisa markaad soo iibsato hilibka waxaad ku cunaysaa qadar yar oo dawadiya dabkiina waxba kama tarin dabku waxba ka tari maayo dabadeetana qadar yar baa dawadaad ku cunaysaa qadarkaa yar ee dawadee aad jirkaaga galay waxa uu maxaan ku dhahaa waa ka keenaya haddii muddo uu kugu socdo in dawada adigoo aan ogeyn inuu jirkaagu maxaan ku dhahdaa adkaysi uu u yeesho dawada mid kalena dadweynaha waxaa laga yaabaa inay tiraan waniyo xoolaha iyo dadku talo dawooyinkooda ma isku mid baa marka waxaan u sheegayaa xoolaha dawada loo isticmaalo iyo dadka loo isticmaalo inay isku mid tahay horta doctor cabdideeq maxaan ku dhahdaa dadkeenu maasha Allah horta waa dad faniya marka maxaan ku dhahdaa hilibka la kariyo ee arkaan inuu maraqii dhadhan xumaaday iyo hilibkiiba waxay dhahdaan dawaba lagama fikiraayo waxa lagu odhanayaa neefka ninkii lahaa saka kama bixinin marka horta maasha Allah xagga diinta moogta maasha Allah ayay ka maraan laakiin inta badan waxa weeyaan dawada dhadhan xumaynaysa inta badan bal hadda khadka ugu horeeya aan markan eegno hello السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhawow walaalo والفيزان الشيخ دكتور كمان سلامي. waan kaa qaadnay واحد دكتور ويديني يا مركز حولها لما ذا مدة إنت اللي بعد كودي عنا الآن كريم. aad iyo aad baad mahadsantahay walaal waxa su-aashaas waa muhiim dawooyinku way kala duwan yihiin walaal hadba waxay ku xidhan tahay dawada la siiyo laakiin kuwa intooda badan ugu yar waa 5 cisho 7 cisho ilaa 5 cisho laakiin siday u badan yihiin 14 cisho wixii ka dambeeya ay wanaagsan tahay in la isticmaalo aad iyo aad baanad u mahadsan tahay waxaana rajeynayaa adiga iyo xoolo dhaqatada kaleba inaad si fiican u akhridaan oo aad la kaashataan kaalayaasha imise cisho ayaan la isticmaali karin cadkoodii caanahooda aad baad u mahadsan tahay hello السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu wal soo dhawow والله الدكتور waxaan weydiinayaa haa magacayga horta waa Safiya Maxamed Hargeysa aan ka soo hadlaya xoolana waan leeyahay haye xooluhu markay naga xanuustaan meel alla meel aan ugu hagaagno oo nu wax ka soo iibino oo nu doctor wax weydiino ka barayfadka mooyaane ma jirtay halkee la idinku soo hagaagaya adeecadu ma idinka maqalay idinkoo sheegaya dhakhtarada wax weydiiyay aad baad u mahadsan tahay walaashay macaan walaasha Safiya Hargeysa ka soo hadlaysa haa Hargeysa ka soo hadlaysa walaal Safiya marka hore soo dhow waxa aad ka helaysaa dhakhaatiirta xoolaha maadaama Hargeysa joogto xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha waxa ku yaala clinic weyn ama meel xoolaha lagu daweeyo oo maaragtay aad mar walba xoolaha keeni karto waana maxaan ku dhahaa mar walba halkaas noogu soo hagaagaysaa dhakhaatiir fara badanna way joogaan marka halkaas insha Allah ka qaadan doontaa nambarhooda iyo maxaan ku dhahaa lagaga xidhay walaal khadka xiga aan eegno hello assalaamu calaykum عليكم السلام. soo dhawow walaalo أندوي. برضه ويديني. hee جواد مركز دعوة حولا ما لقوا ميدي كلا. haye doctore haddaan si kooban u idhaahdo maya dawadu markay dhacdo xoolaha ku mudana aad baa doctor oo mahadsan tahay dhakhtar cabdideeq aad baan kugu mahad celinayaa su-aashii aan weydiiyey waxaad inooga soo jawaabay ma jirto balna xoolahoodu adkaysin u yeelatay dawo ay ku mudeen ama ay siiyeen doctore maxaan ku dhahdaaye wadamada ugu tayada wanaagsan dhinaca dawooyinka kuwabaa ka mid ah laftigooda inaan ogaanaa waa iska muhiime wallaahi walaal horta dawooyinku meelo badan bay ka yimaadaan waxaanan jeclaan lahaa si aanay ama aanay xayisiis inoogu noqon waddan gooniya waxaan jeclaan lahaa dawo waliba halkii maaragtay dawo kasta oo timaada inagu inaynu halkaynu kaga tiirsanaan lahayn waddan hebel baa dawadan soo saaro inta badan dadkeena waxa laga iibiyaa dawadan waa Yurub oo asaas laakiin waxay ku qurux badan leedahay dawo kasta oo timaada marka la yiraahdo Somaliland baa baadhayo waa la hubaa halkaasay maxaan ku dhahday ay dawo waliba ku kala cadaan leed marka insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa inaynu gaadhno de qaranku u dhismayaa kulli horumar baa socda horumarka socda inay qayb ka noqoto inaynu gaadhno inaynu tayada dawada baadhno dawo kasta oo imanaysa inaynu baadhno sababtoo caafimaadku waa qaali doctor maxaan ku dhahdaaye horta aniga iga kula hadlaya dawooyinka waxaan dhahdaa dawooyinka wadamada islaamka laga keeno soo madar
ayaan isiraahdaa oy fiicay okay markaa dee horta wax badan oo aad isleedahay waa lagu dardari karaa baad isleedahay horta islaamnimadu way ka joojinaysaa fahandee oo horta mid oo kasta tukrigiyaa ka mid ah kuwaanan ugu jeclahay horta way fiican tahay arrintaasi haddaan kula kaftamo fiisaay dawooyinka cidda keento dhan horta waa wada muslim dee nimankan soomaalida ee macnaha somalilan maya samaynta shirkadaha sameeya ha sameeya maca kuwa inoo keena lafteedu dawada noocay doontaba ha ahaatee soo inama inaga iyo magaraysa ganacsatada somalilan ma aha waa wada muslimiin hay dadka soo iibsanaya waxba kama oge marka aniga waan aad maxaan ku dhawaagay waxaan oran la runtii ka soo iibsanaya marka koowaad inuu awood saaro inuu dawada yeela keeno sababta cheap macna is expensive ay gaalo tira waxyaabaha jabane waa qaali macna haddii aad bulshada loo soo raaco wax jaban in loo keeno waxa ka muhiimsan bulshada in wax tayo leh loo keeno sababta qofku maanta hadduu dawo iibsado oo ay waxba tari weydo beritoole uu soo noqonaya wuu qasbaya marka waxa la qaatay dawo wax taraysa oo mustaqbalka dheerna aan saameyn ku yeelin bulshada in mar walba loo keeno ayaan runtii ku boorinaa aad iyo aad in dawo tayo leh in maxaan ku dhahday in la keeno oo ku boorinaa waxa kaloo ku boorinaa dadkeenu iyaga isu dhakhtaraan dad badan laga yimaado dawada uun maxaan ku dhaatay dadku iyaga isu dhakhtaraan oo neefkiina qofku isaga dhakhtar ah oo neefkiisu markuu wax ku dhaco isaga dawadu doono siinaya qofkiina isaga isu dhaxtaro imigana bahal internet la yiraahdo jiro qofku waa Google gareynayaaba wuxuu oranayaa waan qufacayaa dabadeetana macaadawada halkaas ka qoranaya marka dadkiina isaga isku dhakhtar noqday xoolihiina iyaga isku dhakhtar marka labaduba waxaan ku boorinaynaa dadku dhakhaatiirsu noqon ee ay u daayaan dadka aqoontooda leh inay dawada u qoraan tahay u qoraan ay isticmaalaan qaabka ay ugu qoraan ay u isticmaalaan inta cishe ay u qoraanna ay dhameystaan runtii taasana awood saaran دكتورة بريجي هورا الدولة ما أقول دودو عصر كانوا بيتمية إن محنكو ده هذا أيه وحلا استعمال شري عشر أيا إنتها قرآن الله دقو ما شاء الله أيا عشر كاسة بدنا دوش لقى شو بيشري إن بدنا اللسين شرو بها عبيان لو قدر شري ولي ده كم موقرتين إن 10 سيان إن محنكو ده هذا يحلو ده 10 كلا علماء كلا كشقيسة علماء ده يدونا دودة إيو أي كشقيسة لكن دختركو دور كدختركو gaar ahaan kuwa xooluhu hadii jeer ma aha inay dawo qoraan macna hadii tusaale ahaan aad maanta ay ka haysato oo aad beeraad leedahay ii ka hayso waxa ugu weyn waxa ugu dambeeyay ka fikiraya waa dawada inaan dawo ku qoro oo waxa ugu dambeeyay ka fikiro waxa weeyaan waxa marka hore aan ka fikiraya marka koowaad xanuunkani sidaba looga hortagi karaa maxay tahay hababka maamul ee maalin walba waxyaabaha maamul maalin walba aad sameyn karto ee ay tahay inaan kugula taliyo si aan xoolahaaga aan kaaga xanuunsan ka hortag waxyaabaha ugu weyn ee maartay laga fikirayo mar walba waxa kowka inaan dawo ku qoro waxa ugu dambeeya waxa marka ugu horeyso ka fikiraya xawiyaan okay qofkan xoolihiisa sidee laga hortagi karaa maxaan ku raday xanuun oo dhan kow waxa laga yaabaa inaan ku raahdo xeradaada hadaan eega ilaa xerada san ka dhig xoolaha halkii ku eego cawska iyo maxaan ku raday ay ku halkii ku maartay cawska aad siisay iyo nafaqadiisa inaan eego waxa laga yaabaa in geedo suna oo kale inay jiraan inaan eego waxa laga yaabaa maxaan ku raday waxyaabaha la xiriira maamulka inaan eego markay xanuunada noqotana inaan eego okay xanuunkee ugu badan sidee looga hortagi karaa waxa jira neefka ka hortaga ayaa ka muhiimsan iyo dadkaba daweynta ayaa ka muhiimsan ka hortaga ka wanaagsan daweynta marka dawadu waxay noqonaysaa waxa ugu dambeeya ee la isticmaalo gaar ahaan dawada lafteedana tan maxaan ku dhalayraa antibioticska ee caabuqa caynada laga hortaga waa inay noqotaa waxa ugu dambeeya ee qofku maxaan ku dhakhtarku siiyo neefka ama xoolo dhaqatada دكتور هذا سؤال كلام كويدينيا إن كورن إن محن كنا ذا دتك بابا ما أنت عند ودي هكذا قادرين نقف كلاس قرا ودركتي إن لشرشرايو آخر كنا لقى بدقاقيو مركا حوله ياسين كرايو بدودي هرتبل أو هيجن أو دريالية أن أرتوالال أنتي إمك مدعبة واحد شراء ده وسارد واحد كل هذا هي دمان قبل هذا يدك موين كبا قيبه waxa kaloo jira dad fara badan oo loo tababaray kaaliyaal deegaan aad u fara badanna jooga marka waxa wanaagsan in deegaan waliba uu barto hadii xoolaha uu xanuunsadaan horta iyaad ku hagaagisa
waa in kulanada maxaan ku dhahday deegaanada ama odayaashu marka ay kulmayaan waxyaabaha la isweydiiyo haddii beeruhu waxay naga noqdaan horta yeynu maxaan ku dhahday ku ciirsanayna inoo ah magaranaysa khabiir meesha inoo joogaya arrintaa inoogu faradhuudhuuban haddii xooluhu xanuunsadaan yaa inoo jooga marka inta badan deegaanka waxaa laga yaabaa hal ama laba in maaragtay loo tababaray dad maxaan ku dhaha la yidhaha kaaliyayaasha xoolaha marka horta kuwaas ayaa markay noqoto daweyntooda iyo howlahaas maaragtay ka shaqaynaya gaar ahaan kuwaasina waxay ku xidhan yihiin qof kale oo dhakhtara bay ku xidhan yihiin iyaga laftoodu waa la tababaro ilaa xad waxbay magaranaysaa qaban karaan laakiin waa inay la tashadaan mar walba qofka degmada jooga markaa dhakhtar baa jooga degmo walba inuu degmadaa la tashado uu yidhaahdo xanuunkaasaa jira dawada caynkaasaan haystaa maxaan samayn karaa haddaba anagna khadka halow salaamu calaykum calaykum salaam waraxmat soo dhawo walaal macaan soo dhawo nimco kala saarno saxaabana soo dhawo walaal nimco walaal mawduuci soo maanta dawada iyo sida loo siinayo xoolaha iyo kuma xidhno iyo adkaysinkay neefka u yeelato horta dawada iskala ma aragtay anagu dawada usii weyn baa ma aragno haye neefka markuu yar ku dhagarmadooda adaan iskaga mudana haye neefka halkiisaan ku mudnaa markuu u yar yahay haye hadduu dhintana waan iska qalanaa haye waan iska milxinaayo waa kaasoo iska bisinayo dawada way ka baxdaan midhaano haye laakiin waxaan ka yar shakinaa dawadan haragada maqaarka ma aragta taasaan ka yar shakinaa haye taa markaanu ku mudnana maanta haddaanu ku mudnana caawa markaanu iska dayno subax waa la iska maalaa haye caanahooda waana la iska cadda waana la iska soo qaataa haye ta labaad dee deegaanka dhakhtar xanaanada xoolaha oo ku xidhan oo ka shaqaynayo oo mudayo ood u yeedhanayso oo kuu joogaa ma jiro haye hal yoon haddii lagu mudunaa iskuladnaado hal yoon oo kale kuma mudnaa mar labaadba kuma mudin haye xataa hadday muddo dheer taallo waa iskaga mudanaysaan waayo sanad haddaan haysano askadii kasoo saarbana ciladaan ku mudnay haye markaa dee talabaad xataa askadan marka dadku nabarada kasoo baxaan ma aragtay nabaradaa waan iskaga yardhayaana waan iskaga tuutuusinaa ma dadka mise xoolaha dadka laftiisa nabarada askada aada bogsiyaan haye miyaa ku muddaan dadka mise xagga saruba ka marisaan sax horta walaal safiya aad bay umahadsanto xaaladda jirta ayay ka warantay macnaha wacyigelinteenuna maanta waxa weeyaan arrintaasay aada iyo aada u daarantay waa arrin jirta sidaa ay sheegtay dadku intay doonaan bay ku mudaan guryahaanay maaragtay isaga taallaa marka waxaan ka wacyigelinaa walaalahayo saameynteedu maaha wax maalin keliya muuqata dawada sida xun loo isticmaalayaa saameynta ama macnaha dulinku inuu adkaysi u yeesho dawadu maaha wax maalin keliya dhaca wax sanad keliya dhacana maaha waa wax muddo dheer socda laakiin marka ay dhacdo si adag ma garanaysaa inoo garaaci kartaa marka waxaan ku wacyigelinaynaa kow intaa ay sheegtay baan ku wacyigelinaynaa number 1 inaanay dawada guryaha iskaga haysan dawada intay furaan oo maanta la isticmaalo muddo dhan aan maxaan kula iska isticmaal dawada maalinta la furo waxay leedahay waqti muddo in lagu isticmaalo wali baan ka dhaxgal haday doonto dibad bay iska taala haday doonto meel waa runta marka kow horta inaanay dawada muddo dheer iska isticmaalo waa ka wacyigelinaynaa waa qalad dawada inaan hal cc oo keliya la iska siin tusaalahan dawada oxidad haysaa waxay noqon kartaa 3 nooc waxay noqon kartaa mid leeyahay 5%, 10%, 20%. qadarka laga siinayana waxa uu ku xiran yahay nooca ay tahay marka inaanad hal cc iska siino hal cc aad iska siisaana waa qalad waana maartay waan ka wacyigelinaa waxa kaloo jirta in neefka maanta marka lagu mudo ugu yaraan 10 cisho kale laga maqnaado on caaniis yaactiisa waliba dawo kasta dhakadeeday ku qorantay la tashado qofka marka maxaan ku dhaday ugu dhow arinta la xiriida inaanay cid hayn waxaan ogahay in deegaano aad u badan loo tababaray dadkan laakiin abaabulkii in deegaan waliba maxaan ku dhahay ogaado cidda ugu dhow ee dhakhtara ayaa ay aad u wanaagsanto telefoonkiisa maanta telefoonaa jiro waa lagu dhufan karaa waxaa jira magaranaysaa bal ka waran in maartay ay helaan marka in sare loo qaado isku xidhnaashiyaha dadka xoolaha ku shaqeeya ee bartay iyo dadkeena xoolaha soo saarka iyo dhaqashada iyo hawsha wanaagsan ku jiraan aad iyo aad baan ayaan soo dhaweynaa oo wacyi maartay ugu boorina
waanad mahadsantahay aad baan doctora kuugu mahad celinaya dhakhtar cabdideeq maxamuud yuusuf aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaya maadaama waqtigaaga na soo siisay iyadoo weliba tahay waqti qabooba intaasi aan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeeni xanaanada xoolaha barnaamijka mid lamid waqti kale intaanu ku kulmi doono waa farsamadii jarmal iyo ay oo idinku dhaafayna saasi nabadgelyo amaana alla ismaqal dambo xiiso leh nolosyo mahuraanka xoolaha